market order waxa waaye suuqa markaa soo istaagtina tira aniga wixii rabo bitcoin ka noqdo aniga waa gadanaya $100 haysa waa gashanaya isla markii buy and leh wixii uu bitcoin ha iigado marka market order kaas Allah isaga faa'iido uu leeyahay waxa degdeg suuqa haduu kor u socdo kale degdeg ku heshay laakiin qasaarada uu leeyahay waxa laga yaabaa suuqa markaas aad gadanayso inuu 95,000 tagay oo aad gadato markaa gadato kadibna 92,000 inuu ku soo noqdo marka xogaa jaa qasaara meeshaas ku jirta maadaama suuqi adiga orderkii aad daba ordaysa marka dadka badanaa FOMO wax la yiraahdo ama fear of missing out market order ka yimaadaan ama dadka retailka badanaa cusub marketkaas ku dhufanaa qof mar rabi inuu ka fikiriyo limitkan uu iga tagaayo buu leeyahay laakiin qofkii fahansan suuqa inuu mar kore aad soo noqonayo support and maaragtay resistance waxa yaqaana meeshaas uu dhigaya uu ku sugaya marka limit order saas kale ku fiican yahay kuwa centralized ka waxaas la kuwan kala badanaa ma lahan waxaas exchange marka asaa marka trade gareynta ku sameynaa central exchange oo kale system kooda isku match gareynaa qofkii wax iibinaya qofkii iibsanaya marka order book isba bedelayo sidaad uga aragtaan oo kale halkaan oo kale arkaysaan order bookkaas marka yani mar walba isbedelayo adiga orderka soo dhigtay uu ka mid noqonaya marka ka baxdina uu ka baxaya decentralized kuwa smart contract-iga aan soo sheegnay ayaa handle gareynaya wax walba oo maaragtay oo match gareynaya dhammaan dad centralized exchange marka ka bacdi marka gaadito waxaaga withdrawal ka sameyn kartaa crypto hana ula bixi kartaa halka decentralized isla markii aad gadato isla markii wallet-ka uu ku soo diraya isaga oo ilaa asaga kuma bahin marka hore mugta marka qaabka oo labadooda ay ku kala duwan yihiin intaas waaye kuwa ugu muhiimsan marka la yaqaano waa Binance-gaas iyo Coinbase-kaas oo kale oo centralized ka iyo Kraken iyo Gate.io kuwan kalena waa Uniswap iyo Sushi iyo waxaas Binance oo kale 2017 la sameeyay aad ay u weyn tahay waxa laga yaabaa billion dollars maalintii inay value-keeda tahay waxaa jirta Coinbase mid la mar hore la sameeyay oo Mareykanka 2012 more waxa waaye waxay dadka cusub oo kale Coinbase ka isticmaalaan Mareykanka iyo waxaas sababtaas keenaysa xataa Coinbase cryptada ay list gareyso inay aad qiimadeeda kor ugu kacdo Binance la soo kala identity kuwa oo DEX-ga ama decentralized exchange-ga waxa ugu weyn Uniswap mid aan leeyahay kale oo Ethereum ku base gareysan taas ugu weyn kuwa kalena way jiraan oo Pancake swap mid aan leeyahay kale oo BNB-ga